السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان هويويnkii ugu xiran meel walba joogtaan soo dhawaada. maanta xogaa waa hirgabsanahay markay u qaatay insha Allah codka dhan ay xiran haday ku tahay ugu horeyntii barkooda iitimaad subscribe isaar ila garay muuqaalka ina share garay insha Allah أنا واحد بدن يتريسا أدين كان واحد أجرا كيلس نفهمتين مركا هالكاس كسير قاعدة channel كا أنت سكدي بمان توحني وذا واحد أدوين أو فايد دونتان هاي كستنا أدو أنفع دونه إن شاء الله هي ستعرور يرير نوع والبهسوق تشيران عرور تقاصة كواد كويرير لحبلود إلا وحي كوين أيام دير الدصار دونه ماشي أنا حاول شيء دام بعر عدة بعر عدنا مسكيني بعر كان فوائد بدن وليه أدوين قفل بقى بني آذن وانفعيا المهنة أدوين أي واحد بدن وقترا فهمتين مركب بعر كان هلقي فائديستو بعر عدها waxaa ku jiro maadooyin aad u weyn caruurta oo anfacayo kuriimadoodan wax badan kaga qayb qaadanayo neerbahana aad ugu wanaagsan yahay ilmo madax xanuun badan ama neerba qaba hadii ku joogaan oo kale ugu dadaal asaga iyo batiiqo kale aad u weyn ay neerbaha ugu fiican yihiin dhaqaatiirta xitaa way qoraan in dadka la siiyana way ku taliyaan marka hooyo kasto ha ka faa'iideysato bocorkan marka caruurta ay u sameeyeen qaabab kala duwan ayaa loogu sameeyaa maanta qaab ayaan rabaa insha Allah inaan iga faa'iideeyo marka qof walba insha Allah ha ka faa'iideysato ugu horeyntii bocorkan waxaad sii kartaa cunug kasto oo jiro 6 bilood wixii ka weyn jiro ma fahamtay ayaad sii kartaa waad soo qaadanaysaa xoogaa qiyaas ah ilmaha yaryar oo kaleeto waxaa ku filan jeex yar ayaa ku filan ama haaf halka xabo oo dhexda ka kala bartay ayaa waa dhaqay waad fiiqaysaa waad dhaqay ka bacdi waxaad sameynay waad jarjaree markaa jarjartid kadib biyo ayaa dabka saaree biyahana waa inaysan badnaanin oo bakeeri hafkiisa aysan ka badnaanin waa ku darsaneedaa bocorkii ayaa dhexda u dhigaysaa ka bacdi waxaad sameynay biyihii dabka ayaa u gaabinay iyo bocorka aad isku dartay marka u gaabisid iskiisa ayuu u bislaanayaa markuu ku bislaado fargeeta ayaa qaadanay ama qaado ama midka lagu burburiyo cuntooyinka caruurta shabaqa yar oo loogu talagalay aad u burburinayo aad u jilicsan yahay marka burburisid hashiidin marka burburisid kadib waxa ku darsaneedaa caanaha formulada oo cunugaaga oo aad keeday tusaale ahaan hal qaada camal ayaa wax yar oo biyo ku qasay waa ku dareedaa ama yogurt ayaa ugu daree waa isku qasay marka isku qastid asagoo ah sida ilmaha cuntada markii la siinayo kale xoogaa loo adkeeyo qaabkaas camal ka dhigane ka bacdi waxaad soo qaadaneedaa bahalada yaryar oo caruurta lagu siiyo furuudka ay afka la galaan sawirkiisa intaan soo saaraya baaladaas ugu shubaysaa caagas yar ugu shubay daboolka ka qaade ka bacdi waa ugu shubay u buuxinay kadib maanta dhan wuu iska dhuuqluuqayaa gacanta u gelinayna markuu dhuuqo uu dhameysto waa ugu celinay markuu dhuuqo uu dhameysto waa ugu celinay fawaa'id badan ayaa bocor ku jira ilmaha kula korinaya ka faa'iideyso hadii aad tahay hooyo caruur korinayso qaasatan ilmo yaryar aad haysatid ilmaha ka weyn 2 sano ayagana waxaad sameyn kartaa waad soo dhaqanay bocorka waad soo jarjaree waad fiiqanaysaa ka bacdi dabka ayaa biyo la saaranay markuu ku bislaado kadib ayaa waxa soo qaadaneedaa blenderka wax lagu shiido halkaas ayaad ku shubay waxa ku darsaneedaa caanaha ugu tala gashay caruurtaada aad siidid waxaad kaleeto ku darsaneedaa wax yar oo sokor ama malab kadib intaas isku shiiday ka bacdi cunug walba waxa ugu shubaneedaa weelka ugu tala gashay sida galaas ama bakeeri cuntada ku siidid ما شاء الله وحبضن أيوة دونتان إن شاء الله مركز توحن شعلهاي وحيابو aad uga faa'iidaan inaan soo galsho halkan maadaama hooyooyin badan ay ugu xiran yihiin aadna mar walba ay weydiiyaan waxyaabaha caruurta wax badan ka tiraya kuriimadooda anna waa nii dadaalaya insha Allah adinkan dadaala oo dadaalka dhinacina ka wada markastana isku daya haduu rabbi idmo inaad wax halkan ka faa'iideysataan hooyo kasto waxaan rajeynayaa fiidiyogan haduu soo gaaro inay share gareyso ee u share gareedo walaasheeda oo u baahan gabdho badan oo fiidiyoyadan oo kale u baahan jiraan uga faa'iideey adigana wanaag ayaad ka helaysaa iyo ajar
gabadha u faa'iideysana wax badan ay u tirayaa insha Allah marka like badan ii saar haduu Ilaahay idmo gabdho muuqaalkan waxaan u rajeynayaa hooyo kasta inay ka faa'iideysato way waxa jiraan hooyooyinka markii oo cuntooyinka caruurta u soo dhigaan oo kale aad ay u diidaan caruurta isku mid ma ahan waxa kale oo aan soo gelinayaa insha Allah wax aad uga faa'iidi doontaan oo caruurta subax walba cuntada intaadnan siinin aan rabo inaan iga faa'iideeyo asii doontaan cuntadana nigu furaay shirubooyinkan aad uga maarmin doontaan haduu Rabbi idmo marka fiidiyogan waxa waaye hooyooyinka aad u anfacaya waxa ku jiro waxyaabo ilmaha koriimadooda koriimada maskaxda neerbayaasha dhammaan firfircoonida jirka caruurta aad weyn uga qayb qaadanayo bocorkan iyo bocor guduudka ما شاء الله تبارك الرحمن وحي قني كويهين فيتامين عاد وبدن أو قدرت كلا تلاقيهلين أيا كتشيرو هواي كستنا عادي وأنفعسا وايو بعرجدود كانوا حواي وبعرجدود كأصلا نفتركيس ما شاء الله تبارك الرحمن قدرت وأن سيدان أحدك وشرح عمل وأوصل من سكرتها بيبي جاجا سيد بعرجدود كوكلاتو إن أدمت كان عدها سيد الوصمينا يا عمل عد أسبيدي كدبنا وش بتيت جيت كان يركا caruurta cuntada loogu shubo cunto ma ahane fruit loo dhaxgeliyo in aad dhaxda uga shubtid ka bacdina aad u dhiibtid cunugaaga kadibna iska dhuuqo markuu soo reebo waxyaabaha yaryar oo ka bixi karin shabaqa yaryarkaana aad ka daadisid wax badan ayaad ka arki doontaa koriimada cunugaaga ma sha Allah ku noqday muhiimad ma ahan cunugaaga miisaan badan inuu saarmo muhiimada waa markasto in ilmahaaga maskaxda iyo jirkiisa ay isla socdaan oo cunugaaga uu ku noqdo cunug aqli badan qurux badan maqaarkiisa ifayo fitamiinaadkiisa ay naaqosin ilmaha qaar waxa jiraan dhiig la'aan ibir la ah fitamiinaadka qaar jirkooda kalumaayo timihi daadanayo ayaga dhan aragooda marka fiirisidaas leedahay maxaa ka qaldan maqaarka dhan borbor oo noqonayo midabku lahaa midab aad u fil daran oo noqonayo marka ilmaha markasto waxa isku daydin waxyaabaha maqaarkooda ifinayo in aad sameeyaan sida dabcoradaan oo kale aad ayuu maqaarku u wanaagsan yahay isku daya inaad u sameeyaan oo markasto dhayli maalinka uga dhigtaan maalinka daasi karin habeenkii oo kale aad siisatid aad weyn uga intifaacaysa waqtiga cuntada aad siidid hal saac amal markay ka soo wareegato ayaa loo dhaxgeliyaa bareegan way wax badan oo faa'iido ah ugu jirto ilmaha markasto markii aad siidid cuntooyin isku dheelatiran misana cunugii aad u qubeysid kareemkiisa iyo saliidihiisa aad u marisid aad u masaajeedid dhar qurxoon aad u gelisid kala aragu ku noqonaya cunugu wuxuu ku noqonayaa qurux badan midabkiisa uu salumeenin wax ka qaldan aysan jirin ay ku noqonayaa laakiin ilmaha markasto Soomaalida badanaa hooyooyinka waxay u muuqataa badankooda markii loo fiiriyo inaysan ku dadaalin jirkooda kaliya laga yaabo in marmarka qaar cuntooyinka ay dhahan cunugeyga wax ma cuno cunugeyga caato waayo cunugeyga miisaankiisa aad buu lumayaa waxyaabahaas oo kale inay kula wadaagaan markasto waxa ogaataa waxyaabaha ilmahaaga aad siineedid oo cuntooyinka ama sharaabka ama maxaa la yiraahdaa biyaha cad asiineedo kaleeto inay ka qayb qaadanayaan quruxda maqaarka cunugaaga mid kaleeto waxa booska labaad galayo kale ilmahaaga waa inaad kareen u mari kartid waa inaad dharkiisa u qurxi kartid waa inaad ka dhigi kartid cunug kala arag ah adkaartiisana aad ku aqri kartid inta sadoo isku helo ma sha Allah tabaaraka rahmaan wuxuu ku noqonayaa baby caafimaad qabo qurux badan niyada ay kuugu dhisantahay xitaa cunuga haduu miisaankiisa iska yar yahay aad ku dadaashid nadaafadiisa iyo quruxdiisa kaleeto ما شاء الله كونه قناعة لكن مركز تو واحد جلسة باس كواد أما لمبر كواد ونضع عنق قاعد سينيد يعانها إن مركز أي نقدان وحيابة الماها كله كوري كارو أما عنق كليج كارو عنق كوري مديسة أي صحسن تاي وقال كين هل كانوا كو إجهاي إنتنا دايرس وجارتي لايك تهايجها هالمامن إن شاء الله ينشر جري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.